ان arrintan waxa waaye mikrofoonada arrinta ku saabsan laba shay ayaa la isku qaldin waxaa jirta arrin hadda Sacuudiga oo malayna hadda xasuusto la dhaay masaajidda waa in la gaabiyo xitaa salaadaha oo waajibka waa in la gaabiyo mikrofoonada aadaanka la gaabiya arrimahaasi wadeen mowduucan ka hadlayna taas ma aha macnaha dadku waxay isku dhex qaldaan in taraawiixda iyo tahajjudka laga hadlo mikrofoonada wax arrinta ku saabsan iyo aadaanka iyo salaadaha waajibka in laga hadlo arrintaas salaadaha waajib ku saabsan iyo aadaanka mowduuc kala waay laakiin arrinta arab ina maanta aan ka hadla waxa waaye taraawiixda tahajjudka oo ka duwan salaadaha waajibka ah iyo aadaankaba mar aan joogay Soomaaliya waxaan maleynaa marka koowaad aan ku laabtay ahayd I think 15 sano oo ka maqan aan ku laabtay waxaan xasuustaa marka salaada subax soo dhaweedaan rajina waa hurdaya marka aadaanka asar waxa loogu tar waa sax inuu dadka soo kacaan oo qofka tisa u maqlo oo hurdo laga soo kaco waay marka mikrofoonka codkiisa sidoo u dheeraan ka hadlaa macnaha mikrofoonka marka Soomaaliya qofka xasuusto muuga sababta laakiin inta markasto aadaanka inta sameyn badana dadku waxay la qabsadeen in saan dhaho macnaha markaas waxa dug aan maqlaysaa dugta oo siinaya waxa maqlaysaa aadaan ma la gaarin dugta qofka soo maqlaa marka waxaan xasuustaa in aan imaamka u tagay aan dhahay ilaahay khayr ha ku siiyo ama imaamku ahay waxaan dhahay dad waayila iska jiro hooyo oo waxa laga yaabaa aan dhahay ilmaha ka xanuunsanayeen ilmo yar oo salaadiiba aan gaarin oo iska jiifo yar masaajidka daris badan uu leeyahay xitaa masaajidku kuma yaal meel ka baxsan bulshada waxa ku dhex yaala dadka dhexdooda ku dhex yaala magaaladii dadka in loo naxariisto waa dhahay dad in mikrofoonka in dadka dhan ay maqlaan wax fiican waa laakiin maqalka in wax la dhaafiyo maaha oo dadkii dhagaha la tiro marka wuxuu ugu dhahay haye maxamedow ilaa khayr ku sii dhahay marka kadibna waxaa arkaysaa taraawiixdii iyo tahajjudkii isla sidii u dheeri codka asagoo aad u dheer ameelkaas ka maqlaysaa mowduuca sheekh ka dhawaajina muhiim ahayd masaajidadu isku dhow wax laga yaabo Allahu akbar inaad ka maqashid Allahu akbar inta ka maqashid quraanka xagga ka maqashid inta laga rakuuco adi xitaa mugd midka la qabsanayso waayo badanaa waa ognahay tobanka dambe aad loo baday loo soo buuxsamay masaajidka taraawiixda ha noqoto banaanka lagu tugtaa dhici karto laakiin masaajidadu isku dhow waxaa dhacaysa markaas in isku dhex tushuush ka dhex furmo midka la socotay ka sugaysid